kabacdi barkaan halka waxoogaa joogay waxaan ku soo barbaaray magaalada Burco markii aan weynaaday waxaan u gudbay xamar oo aan indoora joogay soo noqodkaygina waxaan joogaa iminka Somaliland dee intaas baan ka dhixiyay baan taariikhdayduba taariikhna intaas baan yaan joogay dee dhalashadayduna sidaas ay ahayd taariikhdaadii oo kooban warbixin baad naga siisay waan kaaga mahad celinayaa ehelkii qaraabadii qoyskaad ka soo jeeday iyo familigaagana aad baan u salaamayaa ma hadii korkooda ha ahaato waxaan jeclaan lahaa su'aasheeda koobaad Sooraan hadda waxaad ka mid tahay xidigaha qarniga ee la hiigsanayo dad badanna ay ku dayasho mudan yihiin markaasna inta badan dhalinyarada markaad aragto hadal hayntiina ayaa badan Sooraan waxaad tahay dadka hadda ku caan baxay dhinaca majaajilada dhigida ruwaayadaha u sahlaya in bulshada si fudud wax lagu galiyo markeebay ahayd markii kuugu horeysay ee himiladani ay kugu soo dhacday hiigsigeedana aad isla durtadiba hantiday anigu horta fanka waxaan galay 79 waxaan ka mid noqday kooxdii la oran jiray durdur markii dambena kooxaha badi qaar badan baan la soo shaqeeyay oo waa bari ay ka mid tahay oo kooxdii ay ka mid tahay horseed yaan la soo shaqeeyay oo aan kula soo shaqeynayay macnaheedu marba anigu aan ahayn markaan nin ciidana laakiin barayfadaan kula soo shaqeeyay marka waqtigaas aan ku biiray fanka kabacdina anigu heesaami iyo ma heeso waxaan sameeyaa sheekooyinka oo aan metelaa waa intaas baan anigu xilligaas aan ku soo galay fanka aad baad u mahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa laakiin saaxiibkaaga qaaliga ah ee aad ku jeceshahay kabtan Jawaan kiinta la dilay wada ka waran waa isku mid waxaan jeclaan lahaa Jawaan aad baan kaaga mahad celinaa horta run ahaantii waqtigiina qaaligeed iyo hurteen waa abaal aan idin hayno run ahaantiina aad baad u mahadsantiin Jawaan waxaan jeclaan lahaa ereygan Jawaan yaa ku bixiyay yaase kula xushay in la dhaho Jawaan magac qurux badan oo Ciise Cabdi Ismaaciil baa lagu leeyahay Master Ciise ama Kabtan Ciise laakiin yaa Jawaan kula jeclaaday inaadee Jawaan ma keen warreedi karo waa warab midhan horta aad baan ku salaamayaa habool ugaas maadaama aynu maanta waqtigu inoo siireen halkan wada fadhiisano aad iyo aad baan kugu faraxsanahay inaad erey magaca Jawaan wax lagu bixiyay marka caruurta leeyahay had iyo jeer ciyaalku waxay soo wada bixiyaan anigu magacana anigu yar baa la bixiyay qaar aan maalin wax wada cunaan kaba dhargi waayay ayaa sidan markan raashinkii laasteen dhargiba way wada waxaan Jawaankaay dabeetana magacaalkii ma kala booday sidii un baa wali la yiraahdaa waan aniga la weynaaday sidaas la igu bixiyaa aad baad u mahadsan tahay kulli waa magacaad caanka ku tahay dadka inta badan naanayso waxay leeyihiin u sahla in durtadiiba magacoogii ay ka hormaraan Jawaan waxaan tihiin lamaane yaa runaantii la oran karaa ama walaalo ama saaxiibo siyaabo kala duwan bal markaa markeebay ahayd markii aad Sooraan isfahanteen oo idin tiraadeen waxaynu ku soo baxaynaa in aynu ruwaayado googoosa dhigno oo markaas inoo sahla in bulshadeedana wacyi gelino بسم الله الرحمن الرحيم والله كلمة هذا خطر بدي ويديسي وكلمة هذا يجري ورجعته وشدين كلمة شدين بدي ويديسي لك الصورة وحنا يصبرنا مركي عنو يصبرنا سواء أنك صاحب منهم ولا لنا مني وحبوا لك وضع قالسنا واسكن نفخ قرآن وناسكن متكلياننا وحي هاي تاريخ بان مالية مركي عنو يصبرنا يلا بدي يكون يلا بدي يكون يصدق موجي مري هيدا dabadeetana sidii la ilaha nin saaxiib wardeeyni halka jooga haday saragtaan waa wada qabsan kar lahaydeen dhowr jeer la ii sheegay ayaa nasiib wanaag maalinta ma oo nisallayba sidan maalintiisu helay wali waan wada soconaaba aniguna ruwaadaha sida runtii ninkan waa nin saaxiibkay uu iga horeeyay waxaan waa ku taqaqus waa nin mukhrija waa nin abwaana waa nin jilaaya waa nin isku xidhka iyo sida wax loo sameeyo iyo qaabka waxa sameeyay sidoo soo baxayaan iyo wax oo dhan isagu si fahansan yahay iyadoo wixii la sameeyay wuxuu sii daawanaya feedback wixii ka soo bixi doona iyo bulshada maskaxdeedu waxay oran doontaa buu sii hadal haynayaaba marka ninkan waa nin saaxiibka waa nin hadii ay sameynta tii hadii ay jilida noqoto iyo hadii mid kasta dhinac kasto ay noqoto fanka waa nin aad iyo aad u yaqaan anigana fanka weyga horeeyay ninkan hadaan helin oo aan selina dibadana soo baxneen isagu hore u soo baxayba laakiin anigu hadaan Soomaalidu waxay tiraahdaa ama buur ah ama buur ku tiirsanow marka fankan iyo waxaan doonayso hadaan adigu wax ahayn way la heshaa qof wax ah oo waxaan kaaga horeeyay anagu markan sidan ninkan isalay ayaan anigu wax noqday aniga isagu shakhsi ahaantiisu markii soo hore fanko laakiin anigu waxaan wax ku noqday la'aantii isaga xuma noqdeen marka sidii aanu soo baranay wali waa wada socona dee waa niman isu baahan oo aan daqiiqad iyo maalin iyo saacad iyo gelin iyo sanad iyo bil midna aan kala maarmi karin waa nin aanu aad isugu dheer isugu tiirsanan waa Sooraan Ismaaciil waa good this my friend dee markaa ninkan waxaan ku waa dhiyar me Frank-kayga aad baad u mahadsan tahay annaguna aad baan ugu faraxsanahay labadiina kulli run ahaantiina aragtidiina annaga wax weyn bay noo tahay
sooraan dhankaaga baan usoo noqonayaa sooraan magacaada qurux badan baad leedahay waxa lagu yidhi ibraahim ismaaciil sugulla sooraan sugullaga waa awowga sooraanna manaanays baa haye sooraanna xaguu ka yimid sooraan horta waxa weeye markii aan yaraa waxaan ahaa nin aada u dhuuban oo yar markaa waxaa sooraanna waxaa la yidhaahdaa laanta qudhahe dhuuban ee dadka soomaaliga u yaqaanin markaa dhuubnaan markaa aan dhuubnaaye magaranaysa ayuunbaa laygu bixiyey sida tan markaa laanta keligeeda he dhuuban ayaa sooraan la yidhaahdaa afka soomaaliga dee saas baa laygu bixiyey baan u malaynayaa laakiin anigu yar unbaa dee lay bixiyey anigu la yidhaho maan ark haa wala qabsan haa mar baa marka laygu yeedho ibraahimka markaa lagu yeedho badi kumaba soo jeesto mar dambaan isu ogaaday in aniga la yeedhayo laakiin kan unbaan isugu soo aqaan dhinaci waxaynu u noqonaynaa majaajilooyinkii ruwaayadihii qosolkii iyo farxaddii dadku waxay odhanayaan habboon su-aalihii bay badisay goormaaban dhoolla cadaynay markaa hayga degdegnaan leehay dhoolla cadayntii in badan ay qosasho ruwaayaddii ugu horreysay eed adiga iyo saaxiibkaaga qaaliga amaba se naftaada keliya aad soo wada saarteen goormay ahayd maxayse ka hadlaysay maxaase kuugu la yaabka badnaa ruwaayadda marka aad samaysoo disray ereygan run buu dhigmayaa simadda riwaayadda horta waxay iskale dadka adigu marka aad samayso adigu inaad qisa un fiican keento annaga wax noogu horreysay riwaayad aanu ka samaynay nabaadguurka dhulka ka dhaca soomaalida iyo dadkan samaynaya nabaadguurka waxa ay u samaynayaanba dadka nabaadguurka samaynaya dhirta intan la eg shidaya reerkaaga iyo gabadhaada iyo wax uga keen ma leh waxay doonayaan inay qaad ku cunaan isagoo maryihiisu jeexjeexan yihiin oo waxba aan isla haynin ayuu dhirtii haddana shidaya markaa riwaayadda annaga waxaa noogu la yaab badnayd ninkii markii uu dhuxushii shiday aanu shidnay ayaa markii dambe waxaanu isugu nimi goob murqaano aanu murqaansannahay ujeeddadii aanu lahayna intanunbaabay ahayd ee aanu dhirta u shidayn dabeedna su-aalaan iswedweydiinay dabeed ninkan wuxuu yidhi anigu gebayayguba saasaa noqda anigu saasaa noqda hadda waa si aanan ahaynba markaasayna tusaysay laakiin subaxii sidaa maanaan ahayn markaa waxaa nala galay murqaankii ilaa iyo aan u heesanay kuwa qasiidooyin u qaadnay kuwa qaadka keenayaanu nii qotida xidhaay haqiimin mijinta qoryaheeda badi markaa nabaadguurka filimkaanu ka samaynaynay ayaa horta noogu horreeyey kadibna sidii un baanu usii wadnay barnaamijyadan annaga waxaanu u samaynaa uun bulshada dhexdeeda wax yaalla uun oo aan been noqonaynin keliya waxaanu isku daynaa inaanu u ekaysiino waxaananu matelaynaa wixii ay ahaayeen sidaa awgeed bulshada waxay nagu soo celisaa inaanay jirin wax dhaliilah oo qof kaloo daawadaaba meel buu ku yeeshaa riwaadda markaasuu wararka anigaabay eg tahay ila waxaanu bulshada dhexdeedii ka samaynaynaa markaa riwaayadaha anagu samaynay waxaa noogu la yaab badnaa riwaayad aanu ka samaynay tahriibta oo dadka la qalayay oo bilaayo la samaynayay ayaa islaan inanteedii la qalayo suuxisa ku socotaa telefoonka ku soo dhacay dabeedna intay kimiis bay dubanayso bahalkii tuurtay daawii ka tuurtay baa waxay saartay kimistii oo sideedu cad iyo tabkii saartay marka waa actionkaas sidii aanu u samaynay ayaanu yaabnay sooraan iyo jawaan kulley marka halkan eego wuxuu yiri malaha magacii bay khaladay laakiin ma khaldin ishoon bay ka dhacday waxaan jeclaan lahaa horta heesaa isku fiicantiin heesaa xagan iska fiican lahay bal waayee anigu heesaa isku maanu fiicnin dadkuna haddii aan heeso xasanooyeen ninkan hadii horta inacsiye heesaa anigu heesaa waabaan soo haystay ninkan isku yiri war dadku yaanu muraar dilaacayno dadku kula yaabinaa heesi sida runtii dadkuna haddii iminka qof heeso dadkoo dhabi dema wada nacayaan hadduu doono dee mid meel kale jooga kaa helaya oo fogoo meel kale jooga laakiin anigu islaantaydu unbaa igu tidhahda axsanulfanaan laakiin dad kale uma heesee waan ka gaabsada islaantaydoo keliya habeenkii bay igu tidhahdaa waa ticiish bay igu tidhahdaa markaa keligeed baan u heestaa warood naga tag waxaan jeclaan lahaa kulley marka la wareysanayo dadka jilayaasha aad ba u dhib badan tahay fanaanka haddii heestaa goormaad qaaday xaggee ku samaysay abwaankee sameeyey baad dhihi laakiin jilaa ruwaayaddii hadda jil ma odhan kartid dee oo gelin horuba soo jilay laakiin labadiinan weligiin shayga jacayl la yidhahda maydin heleen welibana sooraan baan ku horeynayaa jacayl weligaa ma ku taabtay oo ma ku asiibay oo eesh calaa naasta ma badisay wuu i helay mid aan yarayn baa i helay oo weliba mushkuladiisa wataaniga igu dhacay waxay igu dhacay inanta anigu aan jeclaado
iskuulad baa igu dhacayso waa ka qajilaaba inaan la hadlo inaan la hadlaan ka qajilaya gabadhii gabadhan kale waa iskala hadli karaya caadiga ah tan laakiin haddii jacayl igu dhaco waxaan sonaya la hadalo markaasun baan haddana isku yaacaya dabeedna markaasaan odhanaya gabadhii u imanaya walaal wanaagsan tahay waa halkaasaana dhaafaynba maalintaas baan sonaya war gabadhii la hadalo markaas inaad isku wanaagsan tahay halkii baan ka bilaabaya markaasaan maalinta baan iskuba yaacaya walaal fiicantiin islaantii ku ayay dhimatay ma nooshahay adeere waxaan la garanayno dee sonaysa wuu waalan yahayba kowdhe wuu igu dhacay moojaane adigu yaa yuu digada ka dhigay maya diga ka dhig maahe dee waa jacaylku way helay wuu helay yaa may ruwaad kamaan samayn waa ka samayn kari waay kowdhi iyadiiba iska riwaayada nin baa beri anagoo jacayl waxaa ka sheekaynayna aanu saaxiib nahayoo riwaayadahana alkoleyste iyo wax ka metela ayaanu nidhi war jacaylkaaga ka warrama kasto aniga jacaylka igu dhacay waa midaan la suuxaya buu yidhi markaan arkoba waan dhacayaaba markaasaan haye gabadha markaad aragto ma la hadasha markaas maxaan la hadlaa waaba dhacayaa waa lay rushaynayaa markaan arko markaa ma heestay baan ku yidhi waan heestay buu yidhi maxaad qaaday baan ku nidhi wuxuu yidhi waxaan qaaday hees la yidhaahdo inanta aan jecelay markii aan arko sidii halaqi cunay oo abguriyey imiratay ayaa suntiigu dhammaata waa ninkii noogu jacaylka xumaa kowdhe soo waxaad garatay maaha marka waabaanu ka samayn kari weyn aniga kana ugu dhacay riwaayadu waabaanu ka samayn kari weyn dee waa ku haya oo jeclaa weli waa jeclaa ilaa weli waad iska sii jeceshahay ha kugu haysato iska sii wada jacaylkaaga su-aasha xigta jawaan riwaayadaha markaad jilayso animika markaan ku arkay ismaan lahayn riwaayadaha markaad jilayso ma qosashid laakiin bini-aadankii ku daawanaya aad ba u gagabaan markaa maxaa sababa hadda waad qoslaysaa laakiin riwaayadda markaad jilaysid wax qosala waxaaba ku qoranba ninkan waxaaba isdhiiba welibna markaa riwaayadda taariibko kale aad bini-aadanka shaarka intaad saarato waxaaba sidhooninkani ma carabahan ka yimid waa kan aadka u adag bal maxaa sababa ilaadari waxaa sababa had iyo jeer qofka barnaamijyada duuba ama barnaamijyada dhiga marka uu wax qabanayo marna boos qosolle baad ku jirtaa marna boosaa qosol balahaynoo dee dadka kala laynayo dadka hargaa kala baxaya dadka waa niyadda intaa waa qoslay marka ninka masoniga qoslaya kowdhe inaadeen kowdhe markaa inaadeene aadna waanu qoslay habeen iyo maalinba waa qoslayaa qof boos naxdina loo dhiibay hadduu qoslo dee naxdintii noqon mayso 3 saacadood ma kala joojiyo markan doono dee waan qosli karaa wumiyad waalatada qosli war maxaa waryaha inaadeen waa qosli karaa 3 iyo 10 iminka idhaha ilmada waad yaabaysa inaad dadku bayla waa bilaa qosle niniga qosol badan hooyo ma dhalin kowdhe inaad qosolkaygi waa dadka meena farxaan ahayn waa shidnaynaar dadkiina u sheeg waa maalin farxadeed kolley inaad qosashaan markaydun sooraan iyo jawaan idun aragteen waa mid xaqiiqa sooraan jawaan aad baydun u shidantiin innaba caadi ma tiidiin laakiin haddaminayaa haye jawaan jacaylka ma isasheen habluhu magacayga malaayigaga boodano jacaylka anugunbu igu soo yar waxaysmaaye aad waxuma jeclaado haddaan jeclaadan anugu waabaan naftaa iga baxdaa laakiin waxaan ku fiicanahay dadkaan u sheegaan ku idhahdaa biliis I love you gabadha waan jecelahay markaa dadkaygaga xariifsa jacaylka ayaan u sheegaa markaa in badan baan u sheegayay dabtana markiiba adugu waa layla soo hadla waxbaa layga futay inkastoo mid qura layla soo hadli waaye mid qura ayaa lala soo hadli waaya gabadhiina adigu hawshii dabetana dhibeen abwaanin aan la hadlo aniguna markaa waxbaan isku yara sheeko la yidhaahdo taariikhda caashaqa nimbatuu ka soo maray abwaanadu tilmaameen iyagaan ka kala tegin inta ay tixgeliyeen adduunyada u tabiyeen tuuymariye caashaqu qofna tirada kuma darin tolka waxaad u cabataa markii taw lagaa dhaco imika haddii geel laynaga qaado yahay soo yaacay haddii wax lagugu sameeyo wax soo yaacay marka laakiin jacaylka isaga cidan looma cawdo
tolka waxaad u cabataa markii taw lagaa dhaco ee tumaatida qarsoon ee wadnaha layga taagayo sidii aar tagoogtiya ka jaban cududa taageeda tahli waayey boodada miyaan taaha ku caweeyey miyaan taagyaraan aawadee toosi kari waaye tuuryadaaba lala gaadhayaa taan u baahnahay tooq beene baa igu hodeyna uma tegaysaane erayadaa iyo qaar kaloo fara badan waxa iga dee waa jacaylka miyaa lala kacaa xasan cilmi dibadle la idhaahbaa iga caawiya hawsha qaaroo deetana adigu jacaylkay war adigu tuuryadaaba lala gaadhaya taanu baanee tooq beene baa igu hodeyna uma tegaysaane xidigaygan toomanay mar buu toos u soo noqonay ninba wuxuu taray baan dabeed dib u tusaalayn tawsku luqoy jacaylkuba ruuxu martaabo taa waxaad ku garataa cilmigu taftaafe oo cilmi boodhari qof kasta oo Soomaali wuxuu soo qaaday cilmi boodhari cilmigu taftaafe taalada xasuusta leh ba talaala loo tago imika lafteeda waxa ba ka hebel horta in adeeray dil jacaylku meel walba uu joogay ilaa waaba halis iyo badh xarbiyadu haye soran waxaad tiri waan heesaa af canfari baan ku heesaa af oromooga daa tigrayga iyada haba soo hadal qaadinba maqalkun baba naga dhaxeeyo markaan tigrayga maqlay garbahana saasaan kaga siiyaabaa tiri haye laakiin laxankaad soo ergisata haddii dee fanaan wax soo ergista ma jirto ergisada iska daadee wixii waan markaan samaysto ayaan kan qof ku leeyahay iska daynaya laakiin waa igu ammaano laxamada qaar haa maya oromada kuma heeso waxaan ku heesay day qaadaan baan qaadaa dee waa sidaa waxaa ka mid ah dumbushe galaase nagalagala abasiraana foosiye wajaneegala umalaleelalelale markaasaa qaarkaas gebigaygo markaan keliyahay weeye marka dadka la joogay la garan ma af soomaaligana dee haa haye way ugu badan yihiin heesaha soomaaliga ah heesaha soomaaliga ah waxaa ka mida oo aan idhaahdaa dee way fara badan yihiin kuwaas miyaan tiriyaabadee waxaan idhi ayaan dhoweyd islaam baan isbaranno jacaylayatiin laan abuuro anigaan ogayn bay taariibtay alla suuma celiyaana waa shay ha qallibanto doontii ay raacad waa islaanaan yar barano annaga ayagii dhammaanin aan ii sheegin bay taariibtay ninkii hore waxaan leeyahay saas sameeyey oo khatar oo samada laga soo hindhisay kowdhe ya macni waxaan leeyahay dee cirka meel dolasho ka soo waxaan uga jeedaa uun nin khatara baana ka soo dhaamiya ha cirka soo dhaanshe maya waana waana kulley su'aalaha ma badinayo deegaanka Soomaalida Itoobiya xaruntiisa magaalada Jigjiga waxaad u samayseen ma jirtaa ma ku hanweyntiin inaad Jigjiga tagtaan oo shacab weynihii Jigjigaad sal ilaa baar aydun la soo kulantaan oo aydun ruwaayada ka soo dhigtaan haye jawaab Allah ina adeeray magaalada Jigjiga horta Jigjiga iyo dadkeedaba anigu waan jeclahayo jeeyaa gacmaha iyo lugahan ku joogiyo jinaadadayda dhabarkiyo xididadayda jiidhkee dhiigga kala jiheeyiyo jiidhkayga weeyaan anigu waan jeclahayo dadka reer Jigjiga inaanu horta u tagno oo barnaamijyada waa ku ballansanay horta soo ranmayna ku ballansanayn waanu ku ballansanahay way naga go'an tahay inaanu mid yar iyo mid weyn culimada iyo caamada mas'uuliyiinta iyo madaxda cuqaasha iyo caydiga iyo cid kasta oo reer Jigjiga inaanu qof walba halkiisa ugu tagno inaanu gebiga waa bal ku dar reer Jigjiga run ahaan markaad ka hadlayso waa ummad maanta lagu dayan karo waa ummad wax qabsatay waa ummad hawlaheedii nololeed ay u abuurmeen waa ilays ka baxaya maanta geeska Afrika iftiin ka baxaya weeye waxaanu jecelahay markaa bulsho kasta oo Soomaaliyeed oo meel kasta ha ku dhaqnaatee inay dareenkan reer Jigjiga iyo waxan ay qabsadeen ay ku daydaan horta marka hore waxaanu jecelahay annaguna Jigjiga oo qura maahe gobolada iyo tuulooyinka inaanu tuulo isu taagno markii dheerigi dhaweydaan ardasaba joognay dad badan baanu ballanay oo reer iminkana hamadayadana way ku jirtaa barnaamijyo aanu u diyaar garaynay waa ku jirtaa oo aanu leenahay maanta ilaahay hawda ay horta mas'uuliyiinta gacanta ku qabatay maanta hogaaminaysa
ilaahay dadkeeda iskaashatayna ha u siyaadiyo nimcada ay gaadheen waana mid ay taariikhdu xusi doonto reer jigjiga iyo kilkashana maanta halka ay marayaan noloshoodii waana dad ku filaaday noloshoodii waa dad soo celiyey dhaqankii Soomaalida oo halaabay waa dad ku faanayay hidahoodii iyo dhaqankoodii waa meesha kaliya maanta la oran karo Soomaali waa laga daawan karaa dhaqankeedii iyo hidaheedii ay soo celisay aad baan anagu faraxsanahay qahmadana waanu ku haynaa ma waanu tagaynaa hadii aanu nabad qabno insha Allah aad baad u mahadsan tahay waa idinka mahad celinaynaa waqtigiina aad noo hurtay laakiin waxaan jeclaan lahaa dhaantooyinka iyo dhaqanka iyo jiibta iyo jaanta baasha la jabinayo jawaan way isku fiicantiin dhaantada waanu isku fiicanahay inaad ero waan dhageystaa jiibta iyo jaanta markasta waxaan jecelahay dhagahaygaas ma marka quraanka iyo de loo kaco xageena diinta iyo markan qof wax weydiinaya de mobile ku hadlaya mooyaane hadallada kale aan dhageysto inay gabigooda bal dhaantiya dhaqan ahaadaan ayaan markasta ugu jeclaanay waan interest gareeya aad iyo aad baan u xiiseeyay de dhiigana way dhaqaaj dhiigu boqol tagay ma maqash markay maqlaaba dhiigu ba boqol taga aniga de wallahi imkaan isleeyahay tababar jigjiga ugu baxdid 3 bilood oo adoo sidaa leed soo noqotid hadii ilaahay ka dhigo waan aqaan dhaantada wuxuu bageer kala dhimane dhaantada horta marka hore ciyaar Soomaali dhaantadu marka dhaqanka iyo hiddaha markii la qiimeeyay ciyaarta koowaad bay ahayd Soomaalida ciyaar wala saqal ilaahay soo raaci jirto koonfurta laga ciyaaro waa markii qiimeynta Soomaalida dhaqankeedii hiddada la qiimeynayay ciyaarta ceeri gaabo la yiraahdo bariyada ah ayaa saddexaad ahayd markeeda horeba horta dhaantadu waxay ahayd dhaqanka Soomaalida ciyaarta koowaad sidan iminka loo casriyay baa jirayay marka dhaantadu waa qofka kali ninkii la oran jiray Bob Marley ha heesiisu reegay bay u badnaayeen qof kasta uu ku ciyaari jiray dhaantadu waa mid qof kasta uu ku ciyaari karo kaan garanay baa xitaa ku ciyaari karaya wala ilaahay ka dhigo insha Allah waan arki doonaa tumaya gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena ayaynu maraynaa laakiin fursadaan idin siinaya amba fursad baad siiseen anna fursadaan idin siinaya fursadaan idin siinaya waxa weeye jawaan baan ka bilaabayaa jawaanow dee dhaantadii waxa tiri tababar baan u tagayaa anna waan kugu casuumayaa bal dhaantadeed jeclaan lahayd in waraysigeena maanta aan ka qaadnay aynu kugu marti qaado oon kugu casuumo oon dhaxtaal kaaga dhigo oo ila daawata dee dhaantadeed jeclaan lahayd inaan kuu soo xulo loo jeclay mid la yiraahdo Axmed Ismaaciil Axmed Budul wardee dhaatooyinku ima kala dhacaanay min kumaan soo qabqaban kari waay teena yarna daawusi bahalaayo lagu soo dhaweeyo la hor keenbal iyagoo badan gabigooda safdhan soo daa aan murqaama gabigaygu be horta dirka xidana anigu ugu jeclahay gebigayguba waan xadreeyaa markay soo gasho oo waxaan hadii gebigaygu si baan noqdaa horta anigu marka maaragtay isku dhacday ciyaartu isku dhacdo والله أولي نتاع ذيك ملا يقال ما يدرج هلا درج مركز جيبي بس هذا كودي ورت عيارات لان صار وحن كلو عيارتي أي توميين أرضيدي يريدي إن أنت لبدي إن أنت يريدين أنت تلبي وداي الله والوال عيارتي توميين لا ترتن كده أنت ضح وحويم عادي ما هنا جيبي ويشدني مر الله لي مركي أنت يريدي يصبحين إنكي وحيرو اسمو دغبيgeedo markay saa u baxday ya Allah marka horta gabigeeduba aniga qura ma ahay dadku u jibaysan waa dhaantada reer jigjigan aad iyo aad bay ugu mahadsan dhaqanka ay soo celiyeen aad bay ugu mahadsan waxay qabsadeen aad bay ugu mahadsan annana waan la ogaan doonaa ummaduna maanta waxay noqon doontaa mid dhaantada ku wada ciyaarta Soomaaliya aan ciyaar kale ba la ilaawo ha dirga ha saasan jecela
gabagabada iyo gunaanadkii barnaamijkeenan ehelada qaraabada asxaabaha idin gaarka ee halkan ka salaami lahaydeen yaan jeclaan lahaa inaan fursad idin siiyo ku hore la inaad marka mikrofoonka lagu soo dhaweey lagu cid salaam baan gabagaygu banaanaa deer dadku dhan way jecel yahay dadku dhan waan soo jecelahay dadku waa wada ehel iyo qaraabo iyo hilbo iyo habar wadaag dadka waa de nooba kala soke laakiin marwada ugu qaalisan marwooyinkan salaamayaa waa islaantayda de waa Faadima Maxamed Axmed iyo ciyaal maxaad warood naga warba miyaa la joogaa waan ka salaamaya halkan telefishin anigoo weliba salaantayda u sii marinayo ka faa'iidaysanaya ESTV horta adiga laftaada in adeeray aad iyo aad baan ku salaamaynaa waxa tahay inaan aad iyo aad baad inaba caadi mati kelmadaha iyo kelmada lamid marka maqlaadka farxda way ka ilaatay oo kelmadaha in adeer laga faa'iiday qofka wariyaha qofka haayo ma maqashay haayo imika kelmadaha markan maqlo inaba caadi ma hayo wad sidan tahay iyo mahadsanid ducaale barigan BBC dhageysan jiray record ku gariiri jiray teena adeer waxaanu salaamaynaa dhammaan dadweynaha reer Jijjiga ee aanu ku soo soconno hadii ay madaxdooda tahay iyo hadii ay ciidamada amniga waliba gaar ahaan nayu booliska tahay inna lillahi wa ciidamada sida raha u boodaad iyo aad bal waxaan idin leeyahay waan idin ku soo socdaa waan idin imanaynaa sooraana waa kan dhiyar ma de welcome with open the hands nagu soo dhaweeyay gacmo furan anaguna gacmo furan baan idin ku soo dhaweynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan dhawaan baanu imanaynaa nayu booliisku ha noolaadeen baanu leenahay madaxdeeda iyo mijaheeda iyo shacabka iyo dadweynuhu intaba ilaahay caafimaadka cimro dharka ha u siyaadiyo war baan ku daraysaa mise waa ma dhameeyay waan iska daaya nayu booliisku maanta wadankoodii way hanteen ciidamadaas sida raha u booda xaqiiq ahaan maanta wadankoodii amnigoodii way hanteen waana guul lagu faani karo iyagiyo mas-uuliyiintooda hogaaminaysa ee ku hagaysan nolosha wanaagsan iyo dariiqa wanaagsanba aad iyo aad baanu u salaamaynaa dadka reer Jigjiga waanu salaamaynaa reer Soomaaliland baanu salaamaynaa Soomaaliya oo dhan baanu salaamaynaa wixii islaam gabadhaydana waa salaamaya waa ninkan waka aad iyo aad waxaan u salaamayaa adaan ku salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan baan salaamayaa guud ahaan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa waa barnaamijkeennii fanka dhaqanka iyo suugaanta toddobaadkan aan ku marti qaaday jilayaasha caanka inta badanna aydun aad ku qosashaan aragtidooda marka aydun codkooga maqashaana dhammaantiinba sayloonta la idinku rikabo aan ugu horeeyo waa ciise cabdi ismaaciil ciise jawaan iyo waliba ibraahim ismaaciil sugulle soran oo barnaamijka maanta marti igu ahaa waan uga mahad celinayaa waqtigooga qaaliga iyo hureen waxayna ballan qaadeen in socdaal dheer ay ku iman doonaan Jigjiga isla markaasina gobolada iyo degmooyinka deegaanka oo dhan ay soo mari doonaan haddaba barnaamijkan akhyaari waxa kaalin muhiim ah ka ciyaaray isla markaasina isku soo dubarida waa Maxamed Xasan Faarax iyo waliba Tamraad Lagasay Heeno Katlabaache waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wariyaasha ka hawlgala Cable TV waa Xayaad iyo waliba Saynab oo iyadna TV-ga qaranka ka hawlgashay iyo dhammaan bahdiga la qayb qaadatay tabinta barnaamijkan inta mid la mid ah aynu ku kulmi doono Jawaan waa inoo Jigjiga iyo soo dhaweynteedii Sooraan oo adna waxaan ku leeyahay si fudud baan Jigjiga kaaga sugaynaa aad baad u mahadsantiin waa idinka mahad celinaynaa